بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب شرف الله مهل كستا جوجتين وحني وسلام السلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سياسة دا سياسة دا معاك عصب سياسة دا بريهان وحيو كسعتان si wanaagsan maalinta ka dambeys waa kasii xiiso leedahay xiisab waa aragtay shalay baarlamaanka wuxuu ansixiyay xukuumadda federaalka Soomaaliyeed golaha wasiirada shalay waa la ansixiyay 188 ansixisay waxa wax ka aamusin male wax diidin male saas ay awleedii ku heshay wasaarahan waxa ansixiyay waa aragtay baarlamaanka waa baarlamaan fiican oo tayo leh oo wadankiisa inuu hor u socdo rabo maxaa yeelay maalmahan aad waxa dadka soo bateen maalmahan waxa soo batay baarlamaanka waxa waa loo shubto ma aha loo shubto ninka hadoo danta dalkiisa iyo dadkiisa ka shaqeynaa wax ka wanaagsan ma shaqeeyo u shaqeynaa waa maya baarlamaanka waxa loo baahan yahay xaaladda wadanku ku sugan yahay simbir inoo la socdo maalmahan waxyaalo fiican ah socdo taliyaasho kale waa la kala bedelay taliyii ciidanka lugta oo kaleente waxa laga dhigay taliye ku-xigeenka laga dhigay taliye kaleente oo cusub waa la magacaabay taliyaha lugta la magacaabay nin oo aqoon laho tayo laho oo ilaakum samti ilaa iyo darajo ka soo gaaray waayii hore oo dawladii Maxamed Siyaad Baro oo sargaal ahaa waaye ma sha Allah ilaahay ala garab gala dib habeena u socdo booliiska oo kaleente dad badan aan dalaacsiye wadooyinka magaalada oo kaleente waa la furay waa aragtay wadadii madaxweynihii hore Cabdi Qaasim guriga Cabdi Qaasim oo wadadii hormareysay oo tarabuunka mareysay waa la furay oo safaaradda Turkiga hore deganaa haddana safaaradda Qatar ah waa la furay shalay la furay wadanka waxa ka socod horumar wadooyinkii kala xirnaa jiray opina laga dhigay hadda isku socodka wadanka woo kala socda marka wadanka guddiga doorashooyinka oo kale guddiga doorashooyinka hadda guddiga doorashooyinka kulligood maamul goboleedyada way soo gudbiyeen waxa ugu dambeeyay xalay madaxweynaha Hirshabeelle oo soo gudbiyay waqtigiisa dhamaaday oo soo gudbiyay guddigaas xalay ugu dambeysay laakiin guddiga dad badan koonfur galbeed oo kale koonfur galbeed iyo Jubbaland iyo galmudug guddigoodu waa loo celiyay waxa lagu way soo gudbiyeen laakiin kuma jiran guddiga heshiiska waa ogtiin heshiiska waxa ku jiri guddi kasta waa inoo ka dhex muuqata waa hal qof oo dumar ah waa shuruuday kamid ahayd marka ka dhan waxay ka soo dhigeen guddiga doorashooyinka labada xubnood iyo guddiga doorashooyinka khilaafaadka labada waxay ka soo dhigeen afarta waxay ka soo dhigeen wada rag ka soo dhigeen marka waa loo celiyay dumarka ugu soo daro heshiiska waa inoo la dhooran waaye waa dumarkana hool waaweyn ay hayaan waa ogtiin waa maamooyinka oo kaleenta siyaasadda hadda dumarka boqolkiiba waxaa loo ogolaa 30 lama taabtaan xilwaanada oo kale marka kana soo galaano hore ugu galaano siyaasadda alhoq dhooro siyaasadda waxaa loo baahan yahay waxyaalaha lagu heshiiyay shuruudda qofka ku heshiiseen waa inuu la dhooraa madaxweynaha doorashadii qofka cod wuxuu ugu tanaasulay doorashada ninka doorasho la wada ogolyahay doorasho la wada ogolyahay qof kasto bini aadana maamul kasta maxaa dhig doorasho la wada ogolyahay oo waqtigeeda ku dhacdo doorasho la wada ogolyahay waa la ogolaaday oo waqtigeeda ku dhacdo haddana waa la ogolyahay haddana waqtigeeda ku dhacaysa guddiga kala daaheen guddigina hadda inta kulligood waa soo gudbiyeen wax dhiman wax jira mal waa madaxweynaha wareegta soo saaray iyo soo dhameystiraan guddiga dumarku soo daran janji ku soo sameeyay hal qof laga soo saaray marka insha Allah siyaasadda waxa ka cusub wadankii horumar iyo saddexdan bilood waxa uu dhiman 112 cisho insha Allah doorashada ka dhiman doorashadana waqtigeeda dhicisa ninkii wax isku haayo banaankaas iskeen ama hebel ku wato ama hebel ku wadan anaga waxaan rabnaa kaliya nin dalka iyo dadka ka shaqeynaa kaliya waa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo insha Allah hadoo alle idmo madaxweynaha dhaartu dhimantahay ninkii ogolaada ninkii kale aadido si u taala laakiin waxaan ku sheegay hadda musharaxiinta ugu cadcad oo ku jira waxa soo labeeyo wasaare khayr usina insha Allah usina waxaan rajeynaa guul aan u rajeynaa anaga madaxweynaha iyo wasaare khayr inta ka dambayso ma taageersan maanta la isku sheegay ma fiican marka soo dhawaada walaalayaal iskaraab noo saar noo la algariy siyaasad dad badan oo ku cusub wala sayad waxay noqday doorashii faraha lagu gubto loolan adaga socdo wadanka waa la isku haastaa loolan adaga socdo laakiin ummadda Soomaaliyeed way ka siisaa wixii dantooda iyo danta dalka iyo dadku cid ku jirto cid dib u iska sameysay wax kasta waxa la yiri mid maxaa u dambeeyay kila sii wad waa u jeednaa madaxweynaheena wuxuu sameeyay
iyo wax qabadka dadka Soomaaliyeed indhooda ku arka wadadii waa aragtay Afgooye iyo Muqdisho waxay marayso waa aragteen dib u dhiska ka socda wanaaga ka socda waxaan u malaysaa Yurub ma intee u socota Yurub ma dhax socota leedahay wanaageeda leh tiyaatarkii oo kaleente masqabkii oo kaleente waa aragtay masxafkii oo kaleente waa aragteen ilaakum samdi hadda guri hooyooyinka laamiyaasha dib u dhiska danka wasaaradaha qorsheynta oo kaleente dib u dhiska ka socda wadanka bal insha Allah wadankeena guul u rajeeyna soo dhawaada walaalayaal subscribe noo saar noo la gareeya marka waxaan rajeeynaa guul waan assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh